السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وشارب شو تي في أو أدمر والبرتين يوتيوب كأن جلس عطان إيه فيسبوك لبضبع تذكر عصبتها هنا سبسكرايب كسر سي أدمر والبعض نلص عتيد إن شاء الله. قلب كنا ما تحكوا قادنا كرسي حيسها بدن يترتك أضك وكذا عيه قلب مدك تاسع عبد الرحمن عبد الشكور وكذا جي مجال لو سمرها عاصمة قلب مدك أيضا كوحدة محمد عبد الله فرماجو حل جذور لما هذا أي حوك ساريان حق دقالة iyo xaq maskaxeed iyo dhinaca madaxweyne qorqor ay culays ku saarayaan in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu kursigaasi ku soo bixin balse odayaasha beesha uu ka dhashay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ayagu ah kuwa soo dooranaya kursigaasi si weyn halkaasi ugu soo dhaweeyay siyaasigaasi weyn ee Soomaaliyeed. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay inaysan marnaba sandareerto siisanaynin sumcadooduna aysan ku haleynaynin in kursigaasi uu waayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa u tartamaya kursigan 14 bishan haddii Ilaahay oodme ee Febraayo 2022. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sida la socon waxa si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug halkaasi oo baabuurta dagaalka iyo shacab badan ay ku soo dhaweeyeen taasi oo fajicisi mucjiso ku noqotay kooxda nabad iyo nolol ee Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay hogaamiyaan. dadka arrimaha siyaasadda Soomaaliya indhandhay waxay sheegayaan kursigan in beeshiisa ay la rabto Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo marnaba uusan siina ku weynin dhaqaale fara badan oo uu wato. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo xiriir weyn la leh dhaqaale fara badan ka hela kuna xiran sida la sheego dowladda Imaaraadka Carabta. haddaba dhinaca siyaasad iyo dhinaca dhaqaale iyo dhinaca beeshiisaba kursigan waxa leeyahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur gacanta ayuu ku soo dhigi doonaa Muqdisho ayuuna la imaan doonaa xarunta baarlamaanka ee dalka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur haddii uu soo galo baarlamaanka soo socda ee dalka Soomaaliya kuna soo guuleysto kursigani caqabado badan ayaa ku dhici doona kooxda nabad iyo nolol asagoo xildhibaano badanna halkaasi ku shukaasan doona oo ku soo jiidan doona. haddaba waxaan la soconaaba waa sida ay u dhacdo 14 bishan haddii Ilaahay idmo kursigaasi sida adag loogu tartamayo ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur la filahayo inuu ku soo baxo. halkaad nagala socotaan waa Shaariba Show TV. haddaad ku cusub tahay subscribe saaro si aad mar walba wararka aan soo gelino aad u heshid. aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin in Allah intii subscribe kor u soo saartaan waxaan leenahay waad mahadsantihiin.